waxaan ku faraxsanahay ardayda maanta qalin jabinaysa hayaanka waxbarashada muddada ku soo jireen maanta waan idinku hambalyeynaya laakiin geediga aqoontu iyo geediga noloshu maanta dib idinku bilowday waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mahadnaqa rabbi kadib waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta kala duwan ee madax iyo mas'uuliyiin iyo mudan iyo waalid bare ee xafladan inagala soo qayb galay farxad iyo sharaf iyo karaamay runtii noo tahay inaad nagala soo qayb gasheen nala karaamayseen idinkana waxaan leeyahay rabbi ha idin karaameeyo waxaan salaamayaa ugu horrayn dhowr xubnood haddaan soo qaato wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan dr ciise kayd agaasimaha guud ee guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan ibraahim aamin midigtayda haddaan u kaco dr jaamac muuse jaamac dr cabdiraxmaan beyle sacdiye caalin خليف شيخ عمر اللهم صل على محمد ويسقك خليف وكسر Somaliland Association وchairman ka ururka bangiyada Somaliland سعدي عالي waxay ka socotaa Plan International waa country director ka محمد فارح دكتور محمد فارح oo ka socda akademiyada horumarinta xagga bidixdeeda hadaan u noqdo علي عرب وكقة فرنسا قبلك ساحل عمر غربي وها قدومك معك شغالها الدولة اللهم صل على محمد بن حدان وسين صعدو سراكيل عيدان أياي إلى لتشوغا وكمدي هاي داهر علي وعيس إيو عبد السلام دين غالي agaasimihi hore ee Central Bank ee Somaliland ayaa isaguna xafladda inagula sugan madax kale oo qaran runtii way nagu soo biiri doontaa ilamka rabbi waxaan ku faraxsanahay sidoo kale inuu inala joogo madaxweynihii guud ee jaamacadda Armas headquarterkeeda Addis Ababa Dr. Mulla Sagai dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad baa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa ardayda waa jeclaan lahaa maanta farxaddiinii baa loo fadhiyaa inaad si degan u dhegaysataan madaxda kala duwan ee kelimaadka idiin jeedin doona tirada guud ee maanta qalin jabinaysa 364 arday weeye 302 arday darajada koobaad ama digriga ayay ka qalin jabinayaan 62 ardayna waxay ka qalin jabinayaan darajada labaad ama masterate ayay ka qalin jabinayaan ardaydaasi runtii geedi dheer bay soo galeen geedigooda ay soo galeen waan ugu hambalyeynayaa waalidkoodna waan ugu hambalyeynayaa runtii tacabka ay ku soo tabceen macallimiintii wax soo bartayna runtii waan u hambalyeynayaa iyagana waanan uga mahad celinayaa maamulka jaamacaddana waan uga mahad celinayaa runtii tacabkaa dheer ee waqtigaa ay soo geliyeen shaqaalaha jaamacadda oo maanta xafladdan quruxda badan leh aynu u fadhino soo agaasimay iyo muddadii ay ardayda u soo adeegayeenna runtii waan uga mahad celinayaa ciidanka nabadgelyada jamhuuriyadda Somaliland oo wax badan aynu ku noolaanno iyagana runtii waan u mahad celinayaa guddida qabanqaabada ee shaqada runtii soo qabatay iyagana waan u mahad celinayaa ardaydaasi geediga waxbarasho ay soo galeen maanta ay ka qalin jabinayaan 364 arday waxay ku soo bilaabeen in ka badan 750 arday 750 arday xilliyo kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo duruufo kala duwan bay soo mareen geediga ay soo galeenna meelay ku soo kala hadheen intay duruufta iyo safarka waxbarasho ku soo jireen
ardayda qaarkood waa u geeriyootay waxaan maanta halkan uga ducaynayaa idinkana aan rabo runtii inaad u ducaysaan dalxa kayse aadam oo simister ka hor shil gaadhi ku geeriyooday inaad u ducaysaan waalidkoodna runtii aynu ka tacsiidino dhammaanteen faatixadana loo akhriyo dalxa waxaa ku lamaanaa dalxa architecture ayuu ahaa rabbi weyne ayaan uga baryayaa inuu qabrigiisa ka yeelo rawdatu min riyaad aljanna waxaa kaloo shilkaa ku dhaawacmay 3 gabdhood oo walaalihii ahaa ama ardaydii jaamacadda ay wada dhiganayeena oo social science diploma studies khaasatan ka socday umulkhayr sheekh cali nimca xasan maxamed nadiire ismaaciil maxamed iyaga ilaahay waa ka badbaadiyey waanay ku dhaawacmeen dhaawac halisa hablahaasi maanta laakiin ilaahay wuxuu qadaray inay 3dooduba xafladda ay nagala sugan yihiin iyagana caafimaad taama ayaan ilaahay uga baryayaa ardayda safarka ay ku soo jireen in waa intaan tilmaamo qaar waa u geeriyoodeen qaar waa guursadeen qaar shaqo iyo howlo kale ayay u gudbeen qaar dhoof iyo adduunka dacalladiisa kalay qabteen in kale oo kuwaa ka midana waqtigu wuxuu saamixi waayey duruufo kala duwan inay ardaydan maanta uga mid noqon waayaan ama ha noqoto duruuf dhaqaale ama ha noqoto duruuf waxbarasho ama ha noqoto duruuf caafimaad ama ha noqoto duruufo kale oo kala duwan oo soo wajahay intan maanta faraxsan in kale oo faraxsanayn oo akademikali buuxin kari waayeen dhibcihii looga baahnaa oo gaari waayey ayaa runtii jira oo iyagu maanta aan nasiib u yeelan intaa fadhida inay runtii la soo fadhiistaan intaa markaan ka imaado jaamacadda dalka waxaa laga aasaasay 2006 sababtay in la aasaaso ama dad badan ay isweydiiyaan jaamacad Ethiopiana oo dalka Soomaaliland ka shaqaynaysa ama xilligaa ka hawlgashay su-aashaa la isweydiiyo maadaama qarankan aanu aqoonsi haysan maadaama wax badan uu inaga burburay xilliyadaynu ku jirnay duruufaha kala duwan asaasiha jaamacadda iyo tiimka gacanta ku haya waxay ku aansadeen inaan gamcaha la laaban inaan la iska fadhiisan laakiin haddii la waayo dayaxa in xidigaha lagu gudo haddaan la haysan ictiraaf Somaliland in loo gudbo in la heli karo waxbarasho adduunka ama shahaado adduunka ka haysata ictiraaf ama accreditation ujeedka ugu muhiimsan ee loo aasaasay kaas waa ardayda maanta halkaa ka qalin jebinaya iyo kuwii iyaga ka horreeyey ee ka qalin jebiyey jaamacadda intooduba waxay wax la qaybsanayaan ama ay la mid yihiin 120 milyan ee waddanka aynu dariska nahay ee dhaqan dhaqaalaha aynu wadaagno ee Ethiopia ardaydoodu waxa ay qabaan meel kasta oo shahaadada ardayda Ethiopia ay marta ayay kuwaasina marayaan accreditation ku arday weelaya ama shahaadadiisa in loo tasdiiqiyo hadduu masterate raadsanayo hadduu PhD raadsanayo hadduu ku shaqo tagayo intaba shahaado ictiraaf ka haysata caalamka inuu markaa la tago ardaydan maanta qalin jebinaysa fursaddaasi waa fursad u taallo ay ka faa'iidaysanayaan oo qof waliba maalinta uu doono inuu dacallada dunida ama waxbarasho ugu baxo ama uu ku shaqo tago fursad u bannaan weeye ardaydii kala duwanayd ee iyaga ka horraysana jaaniskaa waa mid ay haystaan hayaankaa waxbarashada jaamacaddu soo martay marba marxalad buu taagnaa maanta marxaladdu ay jaamacaddu taagan tahay waxaa weeye inay ka gudubto qaybta ah waxbarista ama teachingka isku filaansho buuxa inay jaamacaddu maanta ka gaadhsan tahay sababtoo ah midhihii iyadu ay soo saartay ayaa maanta darajada 3aad ee jaamacadeed ama PhD intaasoo arday oo ka midii ay soo diyaariyeen way dib ugu soo noqdeen way maanta macallimiin iyo diimam jaamacadda ka yimid jaamacaddu hadda waxay rabtaa wejiga labaad inay u gudubto kaasoo ah
إن الجامعة وعلويس كسارتو research أما علم باريس إن علويس كسارتو تيادا وحبرشدا إن علويس كسارتو حرير كعالمي دا علويس إن يسارتو أردين إذا ما تهرب فردنا يكوي كوريبا إن هلي دوران لقد دقال لوجا كذا سيدي هلي لهاي scholarship عالمية أردين ما تهرب فردنا degree كذا نشبينيسا بشارة يجي تلا وحوي الدون كإنتها سو scholarship أيا سنة والله بحيا أو ماستر يا PhD لبدا بيسوق كذا إذا كان ليدي كربا كان على أبوه كذا يتدار كذا إلى الله تبادان جامعتنا واحد ديار يدي الله هاي إن هوشا واحد كلام أبطو ويدي بربر استاكتو صراحة ميو غيره كرب بحيا scholarship ليراه رسمس وفرصة مرة بطالة عدنان هقول ونسوا مالان درا وهرجيسة كله دجن أو إيو ده هم نشوفه أيام كوريسته سنة وربع خسارة سنة كسته إسقاط الشيم كاسي هو خسارة لكن بفايدة وتقولي سكتان خرب حيدك وريني أرض جامعة بكبحري معلمين جامعة كان مقطعي أو كحسي كرو مصطفى عبدن أو كحسي كرو عمر أو كحسي كرو عبد الفتاح محمد عبدي ودمان تودي تيسوقات دبدل كوجا بسون نقطي وما تحكي سيدين شوجا عمر كانوا باهتان سيشن سلايدي كسبين دور أو يدي غارغرين دور إذا كانت تاسوا فرصة إذا تعالى أو إذا بنان أو يتاين التفايدة ستان أرتي لما سريت الديار ليسا إذا كان PhD دي بالله إذا كفرديا شرط توري واحد شتمر كانوا جامعة بيلوني الجودة هلا جواي معلمين ماستريدا والديجري وحده بيشتري ما أنت الحمد لله وين كبدوني أردينا الديجري جاء كوبتشرو هل معلم والديجري هو وحدك مرباني كي معلمين الديجري وحدك وماستريد وي معلمين PhD معلمين تا أردينا ماستريد كمعلمين وحدك أنا وPhD لفلوي PhD ده جدها وضعك كما وضع الله تركوا ما بانوكه الله لكن وحنا صبينا جامعات كالدول وإثيوبيا ويكمل هاي تشيغا هرمايا شيما أديس أبابا دريدابا أي جامعات بارتنا رلتا إيجا معلمين تبعدين نجا عاوية أو كسر قارنا كلية أنا وينو يوجدها تشرين لكن إلى هاي مهدي وحاء سؤالنا سنة مدرتو every year مت عمل لبقف أو PhD أي كسر بيرا أكاديمية إنه وحبرتك كما وضو فيلك أكاديمية كسر بيرا ويجران كاسر سومالان دريسا ودعلنا دونك وحبرتا وPhD جانا لكن وحلقيا ما أنا يمدل كسر نقول أما فيل الكلام إني جران لكن أنت كسر وتسنى ربما مذا عمل لما نقصر بيرا وينوتر سيئين عمر قربي واكن وافر ديو CSI أيوب كمري هاي جامعات هرقيسات شوكا جامعات كنا نوي شوكا بوكا سألنا فرحات من النهضة مركا قف موادنا وصلنا بوربا كسور بيرو درجة الصدحات PhD جا ولي بوا أكاديمية كسور بيرو يسوون معلنا أمر ريسيرشر صابكوا واحد نوصل كردي ضمان تيو بهوا فرشدين تقول تجا واحد كفر حصل هاي أرضينا ما أنت قال تجبينيسا هيان كاوح برشيدي مددا كسور ترين ما أنت وانيكوها مبليينيا لكن جديا قوتو هي جديا نرشو ما تودي بيدكو بلوضي شرط توري وحاضا هاي انتي نبضان ضد اليرا جامعات كمان تروح النووي ما دو كسو بيورا أرضي دي دلاتي لبكوني يلما لبكوني يصدح لبكوني يافر وأرضي أمور برنا كل من وأرضي أمور برشاد وكثر وين أرضي أبو دايرو كوكوي من أساس الدنيا تبتشر سجالية تبتشر حلقي سحراها إلا بطرقة وفرحات رنتي أيه يلوطا أرضي لازم يا كاكو شوغاني مدة قاتان نرشي دبتا هاي بدمان تدل وجه إنسان والدكين ويكون صوت طبيعي إذا كان ما تمرين حلقي وصل هاي أيا الفردية إن بدأ وحى لقى الله شغل عودة كاين الكالو بعض يدا وحبرشة كنت أنا مرة بدأ وحى نرانا شغال الآن باتشتا صابت أرضي دي إنه ميرا بدنا يكحرقون يانا الديار وعين إذا كان باتشتا سعدية أيام ميرا قاركود ما تكهد الدولتا سيدا الله وشق يوم متداوع لماذا هي سيدا عاي فرصة كوسيري سو يدقوا ديار قروب دون تكور نعم معي وعبو سوكي بقبيلية ما أنت قوبتين تشوفنا وقوبة قونات
sida ka muuqatay boorarkii la baahiyeyna madax kala duwan iyo aqoon-yahano ayaa mawaadiic loo xusay sanadkii horena waynu samaynay sanadkana waa sanadkii labaad sanadkii hore tiimkii sameeyey dr jaamac baa igala jooga oo ka mid ah cabdikariin axmed moogood dibi nagaga soo biiri doona cabdirashiid dahabshiil tiimkaasaa sanadkii hore midba mawduuc uu lahaa sanadkanna waxaynu soo xulannay 4 aqoon-yahanan eeryo kala duwan baanaynu ka soo xulnay waxaynu ka soo xulnay xagga siyaasadda iyo madaxda qaranka oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr ciise kayd loo soo xulay xagga aqoon-yahanada madaxa bannaan oo dr cabdiraxmaan ducaale bayle loo soo xulay xagga civil society-ga ama hay-adaha oo sacdiye cismaan laga soo xulay sacdiye caalim laga soo xulay iyo khaliif sheekh cumar oo xagga ganacsatada iyo business society-ga isagana laga soo xulay waa qaybaha kala duwan ama sectoriska kala duwan intoodaba inay matalaan garo jaamacadaha siyaasadda waa lagu bartaa waana lagu falanqeeyaa waana lagu daraaseeyaa laakiin goobtani marka aynu ka hadlayno goobteedii maaha siyaasadna waa ka mamnuuc maanta ardaydaasaa la rabaa in mustaqbalkooda iyo farxaddooda lagala qayb qaato dhammaantiinna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa mar labaadaan soo dhaweynaya agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka walaalkay maxamed ducaale oo dibi nagaga soo biiray iyo maxamed dirir oo agaasimo guud hore ahaa midhihii jaamacadda baajkii ugu horreeyana ka mid ahaa iyagana runtii waan soo dhaweynayaa ardayda ugu dambayn waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo waanu idinla faraxsannahay qalinjabintiinna guulaysta asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu